جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادين سلامة مال كستدونك joogtiin kusoo dhawaada channelka. haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe-ka noo taabo. hadaa hore nala joogto waa ku mahadsantahay. waxaa ku dhownahay 3,000. waxaa rajeynaya nacyooninkaa sii doontiin. meeshaan waxaa waaye maanta waxaa la diyaarinayaa afurka ramadaanka day 1 insha allah. qaabka u diyaariyaa rabaa idinla wadaago. maxaa la dhahaa marka ugu horeysa waxaa waaye meeshaan waxaa diyaarsanayaa 2 koob oo bur kusoo shubtay. waxaa kaloo kusoo darsaday biyo ku qasaya. markaa qas kadib wax yar oo maxaa la dhahaa sokor, maxaa la dhahaa hal koob iyo wax yariis oo sokor ah soo dhalaaliye waaye meesha oo dabka soo saaray. waxaa kusoo darsaday heel iyo maxaa la dhahaa wax yariis carfis oo kusoo karkariyay. marka hadirtan waa kusoo darsaday markaa burkii soo qasay oo si fiican soo qasay oo dhex darsaday oo kusoo qasasnay. meeshaan birta kusoo diyaarsaday awal mar asaag bilaabaa idin sheegay. waa soo dubanayaa mashmashka markaa soo dubo kadib hadan waxyaabo in kala sii gudagaleynaa. waxaa waaye marba wixii oo hadhow ku dhibaas leedahay hadii aad horumarsiisanaysaa. marka kan markaa saas usoo dhameeyay meel iskasoo dhigtay. waxaa kusoo xijiyay bijiyadii meeshaan kusoo shiiday qaybta hore. waa soo dhaqay, waa soo cusbadiisa jubadiisa maxaa la dhahaa waxyaabihiis dhan carfisadiisa kusoo darsaday. maxaa la dhahaa kabsartii duunta waa soo shiiday isna. sidoo kale meeshaan haddana waa soo dubanooyaa. waxaa waaye si isku xigaana usoo sameeyay. waxaa waaye bacda duhur ahayd si oo hadhowtii oo maxaa la dhahaa maqribka markii la gaaro oo loogu daahin camal afurka. waxaa waaye bacda duhur hoosh iska bilaab hadaa wax badan sameynay sida saan oo kaleete. markaa sidaas biyihii haddana soo dubay saa ujeediin kusoo shubtay. markoo inuu soo gaduuto waa ka bixinaya haddana waxyaabihiin kaleeta usii gudagalaya. waakaas haddana bijiyaha markaa sidaas soo dhameeyay. meeshaan waxaa waaye sambuuskii soo diyaarsanooyaa. fooliyada maxaa waaye walaashay isii sameysay. ana waxyaabaha kale intaas sameynaa kan maxaa la dhahaa waxyaabaha kale intaas sameynaa idan fooliyada sii fidisay. waxaa waaye ramadaan markii ay tahay dadka dhan hoosho dhinaca leh qof walba wuxuu ka gaaro sameynaya. laano wax badanaa la sameynayaa oo hal qof ma lagu dayi karo oo ma sameyn karo hal qof. waxaa waaye maadaama hoosh dhan dhinaca iska wada qabanayo waxyaabaha kaleeta sii sameysay. ana waxaa waaye intaa waxyaabaha kale sii sameynaan idana kana isii fidisay. marka ana hadda waa ku shubooyaa idan howlaha kaleeta kusii jirtaa. markaa soo dhameeyay kaas ida sii dubooso. ana waxaa waaye kana soo qabtay maxaa la dhahaa dhexdaag sii gelinaya rootiga dhexda la gelinaya waaye. waxyaabahan dhan waa soo geliyay beejkii waa soo helaysaa hal asagoo oo faahfaahsan. marka waxaa is dhahay dadkan way ka saayaan laakiinse qaabka u diyaarsaday la wadaag camal is dhahay. marka waxaa waaye rootiga haddana soo diyaarsanaysa ujeedin markaas soo dhameeyay jibnada markaa dhexda kasoo wada geliyay. wax yar intuu soo qamiinaya ilaa 5 daqiiqo soo sugaa. sambuuskii soo fiiriyay. waxaa waaye anaa kasii qabtay waxyaabo kaleeta sii sameynaysaa. marka intii 5 daqiiqo camal soo dhaafay rootiga. markaas waa u tagay dabka soo geliyay ukuna korka soo mariyay dabka soo geliyay. markii soo baxay soo naqday hadan burkii soo naqday soo fiiriyay asna. haddana waxaa waaye marba dhinaca aad weeye. waxaa soo naqday maxaa la dhahaa rootigii. waxaa kusoo shubay maxaa la dhahaa caano macaankii kor uu soo shubay saa ujeedin. waxyaabaha dhan hadba isku soo dhamaatay. wax kaliya oo dhiman hadeertaan waxaa waaye in aan soo diyaariyo oo soo dhiga waaye oo soo dhigaa rabaa. marka meeshaan waxaa waaye sharxaadii soo diyaariyay oo video xigay maleynaa in soo dhigay saa u diyaarinayo guriga sharxaadiisa iyo waxyaabihiisa. marka hadda waxaa waaye nalkii waxyaabihi idinta tusooya inta oo laga soo diyaariyaa nalkii waxaas isku sii boojeenooya. meeshaana waxaa geysta marka ramadaan ma la dhahaa maharzeen nishidiisa iska geysta oo ramadaanka sii fiirsano intii waxyaabahaas la sii wax soo sameynayso. kabacdi miiska sii hagaajinaya idin soo gureysa
waxaa waaye howsha dhinacaaga ka qabaa lahaa markii soo na joogo. Marka meeshaan sharxaad markaasas uu soo dhamaano waxaa waaye saxmadii wixii lagu soo guray hadeertaa miiska kusoo diyaarinaya. Meeshaas waxaa waaye biyihii oo hadaa idin soo tusaa mashmashkaasna waa kaasadaasoo soo baxay. Waxaa kale maxaa lahaa si sambuuski asigana waa kana sidaan oo kusoo baxay saa ujeedin. waxaa waaye waxa dhan hal mar asoo taxawan fahmin oo ay dhibna lahaa hawshan oo kale. Meeshaan burka labada nooc waaye. Waxaa kale kusoo xijinayaa maxaa la dhahaa rootigan soonkii hadaa samaysnin waxaa waaye inaa soo isku maleynayo saa u jeclahay le. Marka basbaaskii lagu cuni lahaana waa kaas dhexda kusoo gelinaya. Cabitaankii waxyaabahaas ma soo duubin iyo gaxwadii dhinaca soo dhigay intaana muhiimad ahaas dhahay. Marka waa kaas sidaan quruxda badan usoo diyaariyay. Waxaa rajeynayaa inaad ka faa'iideen oo ka wada hesheen. waa inuu video xiga insha Allah. Intaan waxaa waaye waa isla kaseynaa laakiin waxyaabo cusub insha Allah next video iyo next day insha Allah. waxaa waaye hadan meeshan waxaa waaye waa la cunteyn waa la afurooyaa. waxaa waaye soo dhawaada Ramadaan Kariim. afur wanaagsan ayaan leeyahay. videogan waxaa waaye subscribe-kiisa ku caawiya. waxaa waaye 3 kun oo ku dhownahay wax yaraa ka dhiman. marka waa inuu video xiga insha Allah. Bismillaahi Kariim.